What am I gonna tell her? What am I gonna tell her? maxaan u sheegi doonaa? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada muuqaalkeennan iyo filimkan waxaynu ku eegaynaa shakhsi qani ah amase qof taajir ah oo all of sudden ama si kadiisa mar qura u noqday faqiir oo soo taabtay halka ugu hooseysa. hadda waxa uu sitaa warqaddii lagaga soo cayriyey shaqada. qofkuu sheegaya uu leeyahay waxaan u sheegaa waa xaaskiisa ayuu garan leeyahay waxa uu sheego. filimkaas ayaynu maanta eegi doonaa qaybtiisa koowaad. soo dhawaada. Hey, honey. waxay isku idhahdeen labadii shakhsi hey honey oo ay ka wadaan hey macaan. ereygan honey waa sidii baby, darling, sweetie. waa ereyo ay isticmaalaan lamaanuhu ama shakhsiyaadka uu xidhiidh jacayl ka dhexeeyo. waana halkii ay ka odhan lahaayeen gacaliye, macaan, baby. waa ereyadaas inta badan ay isticmaalaan dad iyagu ay xidhiidh ka dhexeeyo, xidhiidhka jacayl amase lamaanaha isqabaay. waxay isku odhanayaan hey honey or hi darling, things like that. Oh, dinner should be ready in half an hour. Dinner should be ready in half an hour. cashadu waa inay diyaar ku ahaataa saacad iyo badh kabacdi bay ka wadaa. marka half an hour waa saacad iyo half, waa saacad iyo barhkeed. In half an hour, and maybe we can kill some time. maybe lagaba yaabaaba we can kill sometimes inaynu xoogaa waqtiya isdhaafino. ereyga kill time halkan ayuu idinka soo bixi doonaa ardayo. waxaana weeye kill sometime waxa weeye ardayow waa to do something, waa inaad wax qabato, wax samayso. to pass the time si aad waqtiga isu macnihii dhaafiso oo waqtigu u gudbo. while kolkaad waiting for aad sugayso something else inuu shay kale dhaco. iyaguna waxaynu ognahay inay u soo baxayso cashadu 1 saac iyo badh. marka ay doonayaan inay xogaa waqtiya halkaa ku dilaan. waayahay. Well, before anything, I got you this. well hagaag. before anything ka hor wax kastaba ka hor I got you this, shaygan baan kuu keenay. shaygan ayaan kuu keenay. aynu markaas leegna shaygu wuxuu yahay Got you this. Oh my gosh, that's gorgeous. oh my gosh ayay tiri gabadhii oo ay ka wado yaa ilaahi, that's gorgeous, taas way qurux badan tahay. halkan waxaa kasoo bixi doona liis ereya oo quruxda English lagu yiraahdo. ardayo waxaa laga yaabaa keliya inaad taqaano beautiful, qurux badanaad keliya taa u taqaan, laakiin Englishta inta halkaa ka muuqata liiskaas oo dhan intuba waxa weeye waa qurux weeye. stunning quruxda weeye, cute qurux badan, magnificence qurux badan, glamorous qurux badan. ma soo koobi karayo, laakiin waxaan kuu soo dhigayaa shashada liiska ereyada intaba ka doonto qaado. waa qurux badan weeye intuba. This must have cost a fortune. gabadhii waxay tidhi this must have cost fortune. tanu qaali ayay ahayd, ayay gabadhii ku jawaabtay. It doesn't matter, honey. it doesn't matter ayuu yidhi ninkii oo uu ka wado wax dhiba ma laha. hani macaan, wax dhiba ma laha. hadduu qaali yahay iyo haddii kaleba ayuu ka wadaa kolley shaygan uu soo iibiyey. I would buy you the world. Oh, I would buy you the world ayuu ku yidhi odaygii xaaskiisii oo uu ka wado waxaan kuu iibin karayaaba adduunkaba. dabcan waa buunbuunin, adduunka uma iibin karayo. halkan wood waxay ugu jirtaa hypothetical, ma aha wood tii loo isticmaalayay baastiga ardayo. waayahay sii socon. oh, how did I get so lucky? how did I get so lucky ay gabadhii tidhi oo ay ka wado sidee ayaan ku helay nasiibkan oo dhan. yacni waa surprise, way yaaban tahay markaa.
Remember when we used to dream about being rich? Remember when we used to dream about being rich? waxay ku tiri odaygeedii remember xasuuso when we used to dream about markii aynu ku riyoon jirnay being rich taajirnimo inaynu ahaano inagoo taajiriin aynu ku riyoon jirnay xasuuso bay ku tiri odaygeedii hadda And having a big house, and here we are. and having a big house iyo inagoo haysana guri weyn and here we are waynu joognaanay imika jumladda here we are waxaa loo isticmaalaa markaad shaygii aad doonaysay aad hesho ama meeshii aad rabtay soo gaadho marka waxay leedahay taajirnimadii aan ku riyoon jirnay iyo gurigii weynaa wixiiba maanta hee waynaga haysanaa Yeah. Hey, Wilma. Yeah. Never mind. odaygu wuxuu yidhi markaa wilma nevermind oo uu ka wado gabadha magaceeda intuu sheegay wilma ayuu yidhi nevermind micnaheedu tahay waxba kama qabo jumladda do you mind if I take your pen miyaad wax ka qabto haddaan qalinkaaga qaato do you mind if I sit beside you ka waran haddaan agtaada soo fadhiisto miyaad wax ka qabtaa qofku wuxuu ku jawaabaya mar walba nevermind waxba kama qabo marka jumladaasu waa jumlad aada muhiim u ah haye marka muxuu sababtu u leeyahay waxba kama qabo maxay tahay waa odhaahdii xagga hore ay gabadha ku tiri aynu xoogaa waqti aynu isdhaafino ama aynu dilno dabeedna uu ku yidhi before anything ka hor wax kastaba uu hadiyadii siiyey markaa tii ayuu hadda sheegayayoo uu leeyahay mar hadduu hadiyadii siiyey waxba kama qabo haddaynu xoogaa waqtiya isdhaafin karno haddaan dib kuu xasuusiyo Well, if there's nothing else, let's go kill some time. gabadhiina wataa ku tiriba weel hagaag bay ku tiri if there is nothing else haddaan wax kala jirin let us go kill some time ina mar aynu xoogaa waqtiya isdhaafinee We might lose our house. hadda wakaa soo wada baxay odaygii isagoo isla hadlaya ayuu yidhi we might lose our house waxaa laga yaabaa inaan gurigeyga weyno waayo isagu wuxuu garanayaa in shaqadii laga soo caydhiyey isla marhaantan uu ka qariyay xaaskiisii arrintaa inuu la wadaago taas ayuu markaa naftiisa u sheegayaa asalaamu calaykum qaybtan waxay noogu ekaaday qaybteennii koowaad waxaanu ka dhigi doonaa ilaa 3 ilaa 4 qaybood oo kale sida uu odayganu dhaqaalihiisoo dhan hoos ugu dhacayo ilaa maayo intay noloshu isu bedeli doonto wayna socon doonaa nabaday